waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ilbaan fiqi waa mahadsan yahay. Sida uu fiqidii sheegaba kulanka maanta kulan bilow ah ayuu ahaa, ayadoo muddo dheer aan muxuu ahay las arkin. dabcan wixii la isugu tagana waxay ahayday duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummaddan Soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo, masaalixda dalkana la toosiyo, talana muxuu ahay lagu toosiyo, tala lagu wada lahaado. madaxweynuhu waa na soo dhoweeyey, gurigiisuu nagu qaabilay. guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaw ay ahayday, shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdana shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa. qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen, laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaanku yidhaahday ummadda Soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso, kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaanku yidhaahday si fiican ay dalkan ugu hagaago. waxyaabaha dadka Soomaaliyeed baryahan dambe oo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha isla soo qaadnay, waqti badan aan gelinay, si fiican aan uga hadalnay, waxaanan isla soo dhoweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo, waqtigeedii ka dhacdo, extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin, doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga, doorasho lasoo doortay dhammaantood, waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo, sida ay u dhacayso, nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa, waana laga wada tashanaa. doorasho raalli laga wada yahay, dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo, laga tashaday, la isla aqbalay ayaan kusoo ballannay. qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay. wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidee u soconay iyo sidee tahay sidee waa arrimo muxuu ahay dib aada looga lafaguri doono oo looga hadli doono. waxaa kaloo aan madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow iyo mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo, si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo. arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay, dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo, dowladdu ay ilaaliso, annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan, ayagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan. arrimaha ammaanka aada iyo aad ayay muhiim u ahaayeen, waayadana waqti badan aan gelinay. waxaan isla afgaranay, isla garanay amniga inaan la siyaasadaynin, ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin, siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan, siyaasad aan loo isticmaalin, siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin, oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin, ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed. ayadana aada iyo aad ayaan u dul istaagnay, waana isla garanay. waxaa kaloo oon madaxweynaha aan ka hadalnay, isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir. gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka beddesho, la hagaajiyo, la qurxiyo, maxaanku idhahda aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan degan, xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan, xaqooda matalaadda ee siyaasadda, dhammaan madaxweynuhu inuu raalli ka yaho ogolyahu noo sheegay, annaguna waa soo qaadnay. wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan, intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana.
guud ahaan waxaan isla garanay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yiraahdo ummadana ay dib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac ayadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab cadow waaye cid gaar oo cadow u yahay ma jirto shabaab dadka Soomaaliyeed dhammo cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo hawlihiisa fududeynayo magac u yeelayo kor u qaadayo amaanayo dacaayad iyo propaganda u sameeynayo waa cadow ayaguna marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahaayna waa isla soo qaadnay dadka Soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay istaagaan guud ahaan jawiga ay wada hadalkaas ku dhacay waa fiicnaay waxaan isleeyahayna mustaqbalka wada hadallada dambe oo soo socdana waa ka sii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bilaab oo ahaa wixii farsamo aan dad farsamo ka shaqeeyo oo xil saarana loo magacaabi doonaa wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaar iyo koox gaar loogu danaynaynin ayaa ayadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo jawiga waa hagaagsanaa dib ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha Allah tacaala wada hadaladuna halkaas ka sii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad